kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaa subax wanaagsan maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba inay tahayba wanaagsan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug rasaas xoogan ayaa saaka laga maqlayaa dabley hubaysan ayaa weerartay saldhigga weyn ee magaalada gaalkacyo haddaba dableydaasi iyo ujeedooyinkooda iyo xogaha hordhace naga soo gaadhaya ayaan qodobkeena koowaad ku dul istaagi doonaa hadduu alayno dhinaca kaleeto ciidamada daraawiishta maamulka puntland ee howlgallada ka waday bilihii ugu dambeysay buuraha calmiskaad ee gobolka bari ayaa saaka cagta mariyey saldhigyo kooxda argagixisada firxadkoodu ay kaga sugnaayeen buurahaasi waxay saaka ciidamadu ay dileen xubno ka tirsan kooxda argagixisada oo firxadkooda ku dhuumaalaysanayay aagga xal iyo weliba welisoor waxaa sidoo kaleeto ciidamadu ay kaabiga u saaran yihiin goobihii ugu dambeeyey ee kooxda argagixisada ay kaga sugnaayeen toga weyn ee miiraale iyadoo ciidamadu ay kulaalayaan goobo lagu tuunsan yahay in kooxda argagixisada ee waayihii ugu dambeeyey dagaalada lagula jiray in ay halkaasi baaqigooda firxadka ay kaga sugan yihiin haddaba xogihii ugu dambeeyey ayaa soo qaadan doonaa halka ciidamada maamulka puntland ay kaga sugan yihiin buuraha iyo sidoo kaleeto goobaha lagu tuunsan yahay in kooxda argagixisada ay kaga sugan yihiin buuraha calmiskaad ee gobolka bari iyo weliba duqeymihii ugu dambeeyey ay fuliyeen saaxiibada puntland ayaan iyadana soo qaadan doonaa hadduu aan laydno soo dhawaada muuqaalka like saaro aragtidina nagula wadaaga qeybta commentiga aynu ku bilowne dabley hubaysan ayaa saaka weerar ku qaaday saldhigga weyn ee magaalada gaalkacyo mana aha markii ugu horreysay oo dabley hubaysan saldhigga gaalkacyo ay weerar ku qaadaan arrinta waayihii ugu dambeysay mid waxay noqotay soo noqota oo markaasi dabley walba markii qof laga xidho ama qof dambiilaa lasoo qabta in dhalinyaradu intay isa soo abaabulaan ay saldhigyada weerar ku qaadaan walow waayaha dambe ay waxa weeye ama dhowrkii bilood ugu dambeeyey aan la arag laakiin markii ugu horreysay oo saldhig ay sidan oo kaleeto dabley hubaysan u weeraraan ma aha dableydan saaka weerarka soo qaaday xogaha hordhaceen ka helayna ayaa sheegaya in ay doonayeen in ay la baxaan nin xukumano ah oo dambiilo ah oo laamaha amnigu ay soo qabteen islamarkaana lagu hayay dembi muuqda oo uu geystay dableydan lama kala cadaynin inay la xidhiidhaan kooxaha argagixisada iyo in ay yihiin kuwo beeleed oo isa soo abaabuleen balse xogaha hordhace hadda soo baxay ayaa sheegaya in dableydan hubaysan ay doonayeen nin xukumano ah oo xabsiga ku jiray inay halkaasi kala baxaan xabad ayaa waqti xaadirkan oo muuqaalkan duubayo dhacaysa weli lama soo gebagabaynin ciidamada booliska ee ilaalada xabsiga iyo weliba laamaha kale amniga ayaa iska caabin xoogan kala hortegay dableydaasi welina rasaasta dhawaaqeeda ayaa laga maqlayaa qeybo kamid a magaalada gaalkacyo waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho khasaaraha rasmiga iyo sidoo kaleeto xaalada guud ee magaalada gaalkacyo lama saadaalin karo waqti xaadirkan maadaama rasaastu weli ay dhacayso wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu alayno haddii aynu eegno dhinaca ciidamada daraawiishta maamulka puntland oo bilihii ugu dambeysayba howlgallo xoogan ka waday buuraha calmiskaad ee gobolka bari saaka ciidamada geesiyaasha puntland waxay gebi ahaanba cagta mariyeen goobo ay kooxda argagixisada firxadkooda ay kaga sugnaayeen buuraha calmiskaad ee gobolka bari dagaaladii ugu dambeeyey ciidamada daraawiishta guulo waaweyn ayay ka gaadheen waxayna ku howlanaayeen sidii loo soo gabagabayn lahaa firxadka kooxda argagixisada daacish ee buuraha calmiskaad ku dhuumaalaysanaysa inta badan 90% deegaanadaasi waa amni gacanta ayayna ciidamadu ku dhigeen balse waxaa jira goobo weli lagu tuunsan yahay in kooxda argagixisada ah ay ku dhuumaalaysanayaan weerar qorshaysan ayay ciidamadu saaka ku qaadeen deegaanada xal ilaa iyo welisoor buurahan ee aan dhahnay toga miiraale qaybo kamid a ayay howlgallo ballaadhan ciidamadu ay ka fuliyeen halkaasoo ay ku dileen xubno ka tirsan kooxda argagixisada waxaana halkaasi ciidamadu ay gacanta ku dhigeen agabyadii kala duwanaa ee ay isticmaalayeen kooxda firxadka ee argagixisada waxay ciidamadu gubeen gebi ahaanba sahayb iyo raashinka ee kooxdaasi la laayay ay wateen waxay gacanta ku dhigeen hubkii ay wateen ee ay isticmaalahayeen iyo dhammaan agabyadii ciidan ee kooxda argagixisada ee firxadka ay markaasi halkaasi ku isticmaalahayeen ciidamadu howlgalladoodu weli way wadaan waxaana si isdaba jooga ay usoo bandhigayaan guulo waaweyn
oo ay ka gaadhahayaan hore socodka iyo sidoo kaleeto soo afjarinta kooxda argagixisada weli lama dhammaynin oo weli waxaa la tuhunsan yahay in firxadka kooxdu ay ku dhumaalaysanhayaan qaybo ka mida buuraha calmiskaad ee gobolka bari dhulku waa buuraley waa togog waa dhul jeexjeexa ma aha dhul ciyaar lagaga dhammayn karo kooxda argagixisada balse dadaal badan ayay muujiyeen geesiyaasha puntland waa ciidamada daraawiishta maamulka puntland waxay sidoo kaleeto ciidamadu ay wadaan howlgallo kaleeto oo lagu gaari karo goobaha markaasi aad ay u adag tahay in la gaadho ee kooxda argagixisada ay ku sugan yihiin gaadiidka ayaa loo banaynayaa wadooyin oo loo samaynaya muddo bil ka badan waxay ciidamadu ay qodahayeen wadooyin oo ay bixinayeen buuraha dhaladooda iyo goobaha markaasi labagalayga ee ay adag tahay in gawaadhidu ay galaan wadooyin waaweyn ayay ciidamadu bixiyeen oo ay doonayaan in markaasi lagu gaadho goobaha muhiimka amaba loo dhowaado ciidamada lugta ee markaasi dagaalka xooga kula jira kooxaha argagixisada guud ahaan marka la qiimeeyo dagaalkaasi puntland dhowr bilood ka hor ay ku qaaday kooxda argagixisada waxaa u muuqata in 90% lagu guulaystay islamarkaana kooxda argagixisada ay noqotay tusbax furtay firxadkoodana lagu daba jiro oo hadda aysan jirin goob muhiim ah oo ay gacanta ku hayaan goobihii laga qabtay iyo magaalooyinkii laga qabsadayba reer guraagu dib ayay ugu soo noqdeen dowladduna waxay gaarsiisay inta badan agabyadii adeegaha ee markaasi as-aasiga shacabku ay u baahnaayeen kooxdan argagixisada waxaa la rumaysan yahay in hadda goobaha keliya ee si toos ay ugu sugan yihiin ay yihiin buuraha calmadow oo ciidamada puntland ay qorsheynayaan sidii weerar cir iyo dhula loogu qaadi lahaa puntland waxaa ka caabinaya weeraradaasi saaxiibadeeda diyaaradaha ayaa duqeyn ku wada goobaha markaasi lagu tuunsan yahay in kooxda argagixisada ay ku sugan yihiin waxaa sidoo kaleeto puntland iyada naftirkeeda ay soo diyaarsatay diyaarado dhowr ah oo markaasi iskugu jira kuwa ambalaasta iyo kuwa qaada agabyada kale ee ciidanka iyo weliba kuwa gantalada xumbaara oo markaasi loogu talagalay in lagu duqeeyo goobaha ay markaasi ku sugan yihiin kooxda argagixisada guud ahaan marka la qiimeeyo puntland dagaalkaasi ay kula jirto kooxda argagixisada guulo waaweyn oo aad u ballaaran ayaa laga gaadhay shacabka ayaa qayb ka oo garab taagan ciidamada geesiyaasha puntland waxaa sidoo kaleeto dagaalka iyadana furimaha hore ku sugan saraakiisha ugu sarreysa puntland iyo weliba maamulkaba sida golaha wasiirada oo iyagana aan hal mar ka joogsanaynin dhiirigelinta iyo weliba utegidda ama urkuurgelinta ciidamada geesiyaasha puntland ee dagaalka kula jira markii qiimo ahaan la sameeyo puntland dagaalkaasi juhdiga ay gelisay iyo weliba midka dhaqaalaba aad ayuu u sarreeyaa waana midda sababtay in puntland ay gulo waaweyn ka gaadho dagaalka ay kula jirtay kooxda argagixisada ee daacish si kastaba dagaalku waa socdaa lama soo afjarin balse 90% ka badan ayaa lagu guulaystay buraha calmiskaad ee gobolka bari wixii hadda hadhaaba waa goobo yar oo markaasi ay ku dhumaalaysanayaan kooxda argagixisada oo firxadkoodu ay ku dhumaalaysanayaan ciidamaduna heegan ayay ugu jiraan sidii ay usoo afjari lahaayeen goobaha hadda lagu sugan yahay toga miiraale ama dhane ceelka miiraale ayay ciidamadu kor taagan yihiin oo markaasi goobo yar oo la rumaysan yahay in kooxda argagixisada ay kaga sugan yihiin ayay ciidamadu u diyaarsan amaba ay ku siisiqayaan sidii loo soo afjari lahaa guulaysta ayaa leenahay meel walba aad joogtaan ba intii dhimatayna waxaan ilaahay uga baryaynaa jannatul firdowso inta dhaawacatayna ilaahay inuu booga dhayo ayaan allah ka baryaynaa puntland run ahaantii isku tashi ayay ku gaadhay guulaha intaasi leeg iyadoo weliba dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya aan ka helaynin garab weyn amaba aan wax garababa aan ka helaynin weliba madaxda dowladda federaalka soomaaliya qaarkood ay siyaasadeynayaan islamarkaana ku cambaaraynayaan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni in dagaal aan loo fiiradayn ama aan loo eegin amaba aan loo baaraandegin uu geliyey ciidamadii puntland waxaa jiroo kaleeto iyagana siyaasiyiin badan oo ku dhaliilaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni inuu shirqoolle ku laayay saraakiishii ciidamada puntland ama saraakiishii puntland oo markaasi uu isagu mas-uuliyaddeeda qaadaya iyagoo ka fiirinaya dhinaca dagaalku inuu ahaa mid khaldan si kastaba puntland way dhaqaaqday horay ayayna u socotay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in dhammaan goobaha ay kooxaha argagixisada kaga sugan yihiin ilahay inuu soo gaba guulaysta ayaan leenahay reer puntland